السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. labada kun iyo tobankii habeenkii lagu dhawaaqay in ay qadar martigelin doonto koobka adduunka waxaan lugeynayay oo aan fiirinayay bal xaaladda dadku waxa ay samaynayaan aad ay dadku u dabaaldegayeen runtii waxaan islahaa 12 sano maxaa dhow 12 sano yaa gaari doona ama wuxuu u muuqday mid aad iyo aad u fog 12 sano 2010 ay ahayd 2022 waa waqti aad u fog arrinku inuu u muuqday sidii riya macnaha dad iska riyanayo kale laakiin ma filaynin in aan 2022 goobjoog u ahaan doono furitaanka koobka adduunka طبعا sidaan wada arkaynay kadib isku dayo badan oo Yurubiyaanku ay sameeyeen wadamo badan oo galbeed sidoo kale in koobkan ama wadanka lagu qabto ama dib loo dhigo ama ay carqaladayaan xitaa mar ayay socon jirtay طبعا in ay dhahaan koobka qadar lagu ma qabanayo meel kale ayaa lagu qaban doona xitaa wadamo macnaha la sheegi jiray xitaa ayadoo la lahaa markii go'doonka la saaray qadar طبعا 2017 in ay lahayn arrinkan saameyn ayuu ku yeelan doonaa wadan halkii dhinaca xuduudka bariga laga xiray muddo 3 sano uma suurtagali doonto waxyaabo badan ayaa la sheegay laakiin kadib 12 sano ku dhawaaqidii Sebalatro ku dhawaaqay inay qadar martigelinayso koobkaas shalay waxaan arkaynay qadar inay caalamka ka yaabisay xaflad furitaan heer caalami ah ayadoo kale aanan horey loo arag furitaan koob adduun yani lawxaad kala soo bandhigayay muuqaalada kala duwan qisooyinka sida inaad daawanayso kale film si cajiib looga soo shaqeeyay amiirka qadar ayaa ku furay Tamim bin Hamad bismillaahir rahmaanir rahiim ma una dhihin ku soo dhawaada dalkayga qadar ku soo dhawaada dawxa ma una dhihin wuxuu yiri ku soo dhawaada dhulka carabta waxaana lagu bilaabay طبعا ya ayuhan naasu inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha dadka waxaan idinka abuurnay طبعا lab iyo dhadig وجعلناكم شعوبا وقبائل طبعا من ذكر وانثى بني ادم انه سداس يهي بني ادم معناها الجنس صدحدين سنجرين يعني طبعا قوم كاسي بوبوننا يا قياس كرتان لكن wax walba caadi ay ahaayeen xafladda siday u socotay wax walba yani cajiib ay ahaayeen waxa arkay ilinta ka socotay nin lagu magacaabo Xasan Al-Dhawaadi iyo Nasir Al-Khatir oo aha ragga qaabilsan 12 sano u damay koobkan wax walba caadi ay ahaayeen markii laga reebo markuu albitaraha ama xakamka ku dhawaaqay bilaabashada ciyaarta xulka qadar wuxuu muujiyay ciyaar aad iyo aad u liito يعني أنا طبعا وان تابع جري وان لسعودي وكوي كوب آسيا كوجولي سلبادة كوني سجالة طبعاً حولك وهر مرسنا إلى هير لكن شالي ترنتي ومركي أجوه رسي كوب أدون عياريان حالد يعني وحساب من نجن آدي آد لوجنها واللي بقول هيا إن بقايان إن لبن بليون أو قف عالم كان يداونايان حالد يعني رنتي آدي آد ولي ذات أي صوب من نجن أرنك عجيب كام حول كان إكوادور كبدي لبضي إبرة جبدي جوريجودا بلوجي كوب كأدونك مدة أنا فوقين كهر قدر أيها كبدسي إسو ديارين تقدر طبعا سراب أيضا ما أين جلينين وحكي قيب شيء لبا عيارات لبا معناها أن كوب أو لاتين أمريكا عادي يعني كان ما أين وطن لاتين أمريكا تاي وطن كان وكبدسي وقت كاس لكن شالي أرنكو حوها مد أما كاج لبي إبر ولي بس دقة كان بيه كوباد مركا عيارة الشيء كذا دكو مسير ديرانينا أرنكاس رنتي قدرين حتى مركا قدرتو حليهين فرحدي فوريتان كي أرنكان عجيب كدب لبيت وانسان كدب يعني هذا اللذاس يوروبيان فرحداس وحابر دري سعد الشيب طبعا قولها يا قدر حلكة لكن عيار صوصعتو هلا عيار در طبعا السنغال انه حلا عيارا صدق لنذرلاند ما arkayna waxay sameeyaan furitaanka waxa lagu casuumay madax badan oo caalamkan kamid ah u badan wadamada carabta gaar ahaan khaliijka xitaa wadamo macnaha طبعا qadar wax kala dhaxeeyaan wakiid way heshiiyeen sida sacuudiga imaaraadka xitaa waxa arkaynay bin salman maxamed bin salman oo xiran wishaax أما مرضاس عالنك قدر موجنا طبعا قدر أيان تاجرسان حركة قدر سيدوك الأردوغان أيا إماضي بول كجامجا رواندا أيا إماضي وحي إماضي مدحونا السنغال مدح بدن أيا إماضي لكن ما ينعمان سيد قياسيس أرنكو يعني سلو فجدوها ودكون ويري هي أردوغانيو سيسي أيها المرلوق إسكا كسور بحي سيسي أردوغان ماشان معاكو كاني أديك معاكو كاني أمريكا قدر ييري بل السلامة حوغا انت بل ماشان أنجوغنو تعدي على خير معنى خير أركانا كون أماضو مركي وفوريتان كان أماضانا بل وان أركينا وودا شاهينا إني معقولتي إنه هشيساني إنكاله طبعا ومن بهن دينا كل هذا كان دم أنا صاري لكن ماشي طبعا ما نقرش سنين إني كلمان لكن ويس أركين أبو تريكا محمد أبو تريكا الكابتن محمد أبو تريكا أيا كمدة ضدك هذا الذي ويري آد لو هذا الهي طبعا لو سيفافيي ساعدي لصودا في مركان كان لينا فوريتان كوب كادونكا طبعا عد والبا ويوكتي أما أنت
badan dabcan dadka yaqaan u ogeen maxamed abu tariika iyo mawaaqiftiisa kala duwan yani qadiyadaha muslimiinta min falastiin ilaa wax walba in xitaa BN Sports mar asagoo BN Sports waxaa le ninkaas Paris Saint-Germain le Nasser al-Khalifi ayaa iska leh abu tariika studio BN Sports ayuu uga dhawaaqay mar in la qaadaco Faransiiska oo dadka qaar ay lahaayeen ninkan Nasser al-Khalifi ama ku cayriya BN Sports asagaa leh Faransiiska naadigiisa uu ka dhisan yahayna waxaad ku baaqaysaa in macnaha la qaadaco dabcan waxaa ula jeedaa in xoogaa abu tariika uu leeyahay mawaaqif geesan mar lagu yaqaano استوديوها أما الاستوديو التحليلي قاضى لقيته طبعا وحكوا بالله بآيات قرآن السيدو كلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. إن العالم افتكرنا خلاص من سنة 1930 بقى فيه هناك دولة عربية إسلامية. عشان كده أنا حابب أبدأ الاستوديو بتاعنا بآية قرآنية. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أبو طريقة وحكوبة معناه حيري إن أقون صدا معناه نجا وحنا أمة جرته إسلام رقن له يعني ما لوجو إمادة له ha iska dhigana macnaha طبعا sidaan arkayna Yurubiyaanka in ay leeyihiin ama galbeedka aan dhahno saalahan aan dhahna galbeedka in ay leeyihiin macnaha dhaqankiina iyo waxa tihiin ma aqoonsanin macnaha dhaqankiina macnaha kaanama inaad tihiin dad waxay haystaan macnaha yihiin wax qaldan Abu Tariq wuxuu leeyahay sidaas manihin anaga waxaan ummad طبعا jirto meel loogu imaado leh marka na aqoonsada marka koobaad taariikhdana akhriya dhaqankanaga akhriya xadaaradana akhriya markaas ayaad ogaanaysaa waxa aan nahay intii uu socday ama xafladaas furitaanka waxyaabay la soo bandhigay waxa kamid ah lawxad Morgan Freeman iyo wiilkan yarka qadariga ah naafada ah ama qaybta dambe Ghanim al-Miftah arin macnaha ilaahay ay ula jeedeen yani xiwaarka iyo maxay ahayd laba xadaaradood ayad quraan sidoo kale meesha lagu soo qoray dadku inay yihiin qabaa'il iyo shucuub li tacaarufo waxay ahayd Yurubiyaanku ayna طبعا aniga qof walba sida xoogaa maarto uu fasaran karaa in Yurubiyaanka طبعا ay bis caalamkan ayna ku noolayn in dhaqankooda ay waxooda kaliya una sax ahayn in aan nahay ummad jirto aqliga saxda ah ama wadada ugu saxsan ee la iskugu imaanayna ay tahay anaga dhaqan ayaan leenahay diin ayaan leenahay ummad jirto ayaan nahay manihin macnaha adinka ma teedin qiyaaska xaqiiqada ma teedin qiyaaska saxnimada ma teedin macnaha Yurubiyaanka hadda markii ay arrimahan ka hadlayaan uma arkaan macnaha shaygan qaldan saxa ee waa aslan annaga miqyaaska xaqiiqada annaga miqyaaska saxitaanka annaga waxa looga qiyaas qaadanaya saxda iyo qaladka wixii annaga aan rabno yani wixii annaga macnaha aan sax u aragnaa sax wixii annaga qalad aan u aragnaa waa qalad waxyaabaha ay cajabiyay runtii waxa kamid ah hadal aan maqlayar sidoo kale youtuber oo ciyaaraha ka hadlo oo yani oo ahaa runtii in macnaha maanta markaad fiiriso qaabka ay ama xitaa wadamadanada nasiib xumo sida dadka qaar ay sameeyaan in marka adiga shakhsi ahaan adiga mesela ka Soomaaliya marka tagto wadamadaas marka tagto waa inaad dhaqankooda ixtiraamtaa waa inaad macnaha dhaqankooda saan ha ku xadgudbin waa tan la dhaho haddaba markuu asaga kuu imaado Soomaaliya kuugu imaado Qatar kuugu imaado Masar kuugu imaado arrinka cajiibka waa in asaga aad dhaqankiisa u muujiso macnaha waa inaad ixtiraamtaa halkii laga rabay asaga macnaha aqliyada maanta socota way halkii laga rabay asaga inuu ku ixtiraamo macnaha dalkaada ayuu imaado dhaqankaadi inuu ixtiraamo inuu ku socdo qawaaniintaada maya adiga qawaaniintaada waa inaad u bedeshaa adiga yani xitaa aqliyada dadka caadiga xitaa fiiri yani hadda mesela qof cad haduu ay magaalo wadankeena kamid ah tago yani waxa asaga uu sameeynaya sax yani xitaa haduu garmarsay dhaqankanaga طبعا arrinkaasna waa muhiim yani runtii in aan ogaano macnaha in ayaga ayna ahayn qiyaaska xaqiiqada looga qiyaas qaadanayo طبعا koobkan adduunka intuu socday dhinaca dacwada meel aad u badan horta derbiyo badan meelaha dalxiisayaasha inta badan ay طبعا tagi doonaan jamaahiirta waxa lagu soo bandhigay axaadiis la sii tarjumay طبعا si ay dadka u akhriyaan islaamka waxaana jira guddi macnaha xukuumadda wasaaradda awqaafta iyo hatta qadar wax ku fiican waad isxil qaami karta macnaha sida wadamada qaar ma ahan cid ku dhahaysa ma lahan yani yaad matalaysa yaad macnaha ma faafin karta hal la hadlin yani hadda waxa ay qof ani hadda baxo ina jamaahiirta u tago islaamka u soo bandhigo wadamada qaar oo waliba carabi ma sameyn karta arrinkan dad badan ayaa islaam ilaa hadda xaqiiqada Allahu a'lam waxay gaarsiinayaan dadka islaamay ilaa 800 qof inay soo islaameen طبعا waxyaabahan waa waxyaabaha kamidka ama aadka uga walwaliyay yani caalamkaas kale يعني caalamkaas hadda مثلا galbeedka waxyaabaha ay xoog u saaraan waa in muslimiinta aan waxba laga ogaanin qof kasta oo muslimiinta ogaado soo dhaxgalo shakil aan saameyn ay ku yeelanayaan
islaamku runtii waa mid cajiib xitaa fiiriya kuwaas yani maalan holandeeska wey waxaad maqlaysaa ninkan kitaabka ayuu rubay inuu gubo wuxuu isu diyaarinaya samaynta filim uu islaamka ku bahdilayo ama uu le islaamka ku xumee wax yar islaamka markuu yara baaro waxaad maqlaysaa maalin kadib wuu islaamay marka ilaa hadda yani jamaahiir badan ayaa islaamtay u badan gaar ahaan wadamada Latin America arrinka cajiibka ma rumaysanaysaa in ay jiraan dad aan weligood يعني هذا كوا مثلا أوروغواي كإماضي محيد كإمانايو حتى قريب أرجنتينا كميده كإمانايو ودما معناها لاتين أمريكا داس وحيابا عجيب كان هذا أرجنا وحكمده إني جيران ضد قاران كوا أوروغواي كإماضي وليجود أنا أرق من الإسلام معناها الله هذا أما أنا أرق حتى ضد مسلمين أنا أرق مساجد وليجود أنا أرق وليجود قف مسلم أنا لا تعامل قياس كرتا إن إسلام كالله بندقوي قاتان لا شيء إسلام كوح وياهي ويسهلنتها لكن يوروبي أرن كان مربتها إنه مربنا waad arki doontaan koob dambe yani way adkaan doontaa in lagu qabto yani dal muslima shalay طبعا waatii mowduuc u damay aan sheegnay in madaxa FIFA Infantino uu yiri Yurubiyaanka aad uu ugu dhagay oo yiri macnaha 3,000 ee sano la soo dhaafay wixii Yurubiyaanku ay sameeyeen gumaysi dil xasuuq wixii ay sameeyeen 3,000 oo sano kale ay u baahan yihiin si macnaha uu caalamku u iloobay u dambi dhaafaan 3,000 sano runtii ciyaartoyda galbeedka waa weyn xitaa kuwa hadda ciyaaraha ka hadlo macnaha wariyaal sidii Gary Lineker iyo muxuu ahaa xitaa xiriirka kubadda cagta Jarmalka wuxuu yiri uma codayn doono Infantino uma codayn doono sababta arrinkan waa arrin aan ka xumaanay taas oo muujinayso runtii asaga naftirkiisa yani inuu daalay in macnaha aqliyadooda sida u fikirayaan uu daalay marka shalayto qatrasadii isla weyninkii aqliyada imberiyaliyada inay aqoonsaneen qof kale oo bini aadam shalayto ayaa si wada jira istaad albeed loogu duugay koobkana wuu socdaa marka insha Allah dhacdooyinka noocan kala inta koobka uu socdo طبعا oo dhinaca jaanibiga waan idin wadaagi doonaa waaniga Umar Inshaar wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh